ومركا له هي كورسكيني سوفتوير اركتكتشر وإن كهليني قابل سميتكا سوفتوير سكا عشركين ودنبي وحن كوسا قادني موضوع مهم كاسيو requirements وقالكينا maantana waxaan ku soo qaadanaynaa laba ka mid ah tiirarka software architecture-ka waana featureska iyo quality-ga haddii aad focus ka saarto kaliya ta featureska waxaad dhisi doontaa softwares qabanaya shaqo kastoo loo baahan yahay balse aysan adeegsan karin dad aad u kooban xitaa 10 qof oo kaliyatii aysan hal mar wada adeegsan karayn ama haddii aad focus ka saarto kaliya ta quality-ga waxaad dhisi kartaa softwares aad u dhaqso badan oo amni ah balse aan lahayn wax features ah oo ay qabanayaan marka si aanu buuxino gaabkaasi waa inaynu isku miisaanaa functional requirementska iyo quality attributska casharkeena maanta ayaynu si faahfaahsan uga hadlaynaa mawduucaasi soo dhawaad dhalinyaro ugu horreyn soo qaadano oo aynu qeexno waxay tahay systemku qabto functional requirements haddaba si aanu ogaano waxa uu tahay systemku qabto waa inaynu ururinaa ama marnaa 3 tallaabo muhiim ah ta koowaadi waa inaynu ogaano dadka isticmaalaya systemkaasi ama actorska ka ah haddii soo qaadana application delivery ah oo cunto laga soo dalbado waxaan ogaan karnaa in dadka isticmaalayaasha ka noqonaya applicationkaasi ay yihiin 3 qaybood kuwaasoo kale ah dadka isticmaalaya ee soo dalbanaya cuntooyinka dadka sameynaya deliveryga ee geenaya goobaha loogu talagalay iyo dadka sameynaya cuntada ee hoteelada kale sidoo kale waynaynu qeexnaa use caseska ama habka loo isticmaalayo applicationkan tusaale ahaan waxaan ogaan karnaa in la soo dalbado cunto kadibna la qaado oo la geeyo goobta laga soo dalbaday loona geeyo cidda soo dalbatay iyo in la process gareeyo paymentigii ama lacag qabashadii sidoo kale qodobka saddexaad intayna sameynay waa inay ballaarino use caseska tusaale ahaan ay dhahno maxaa dhici kara haddii la cancel gareeyo dalabkii oo kale sidaas ayaa systemku uga jawaabi doonaa keiska noocaasi oo kale ah saddexdaasi waddo waxaan kusoo ururin karnaa macluumaad aad muhiim u ah oo ku saabsiisan functional requirementska laynaga rabo ee uu systemku qaban doono tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa use caseka ugu fiican aynu heli karno waana marka uu qofku sameeyo dalab kadibna uu applicationka cod soo saadiro backend-geeni kadibna backend-gu uu marka hore soo xaqiijiyo in payment gateway la soo maray oo lacagtii la bixiyay kadib marka taas la soo xaqiijiyo in backend-gu uu fariin u saadiro hotelkii uuna inoo sheego in jiro dalab cusub hotelkii kadibna uu hotelka aqbalo dalabkaasi kadibna backend-gu uu dib ugu celiyo customerkii una sheego in dalabkiisi la aqbalay deliverygiisina uu soo dhow yahay haddii halkaan u fiirsatay qodob muhiim ah ayaad ka fahmi kartaa kaasi oo ah in haddii tabletka hotelka ay soo gaarayaan codsiyadu uu yahay offline in silsiladaas isku xidhan ay kala go'ayso taasina waa mid ka mid ah challenge-yada rabnay inuu xallino okay aynu nimaano haddaba quality attributska ama non-functional requirementska aynu dib ugu noqonno tusaalaheennii oo aynu gelino tijaabo adag aynu ugu horreyn soo qaadano performance-ga uu shaqada ku qabanayo application-keenaasi haddaynu dib ugu noqono tusaalaheennii oo marayay 4 steps si loo dhammaystiro use case-kii ugu habboonaa ee soo marnay step kasta haddii uu qaato ku dhowaad 2 sekin waxaa qofkii isticmaalaha ay ku qaadanaysaa inuu ku dhowaad 10 sekin uu ku dhammaystiro dalabkii ka waran haddii ay isticmaalayaan dad aad u tiro badani waqtigaasi waxaa noqon doonaa mid bata inuna dareeno culays sidaa awgeed waa inaynu latency ka dhignaa wax ka yar 2 sekin sidoo kale availability-ga iyo reliability-ga ayaa ka mid ah non-functional requirementska tusaale ahaan maalmaha roobku jiro ama cimiladu ay xun tahay traffic aynu filaynayo waa mid aad u badan sidaa awgeed waa inaynu samayn karnaa scalability tusaale ahaan waxaynu samayn karnaa horizontal scalability oo waxaynu adeegsan karnaa servers kale si aynu ugu qabtaan codsiyadaasi application-keenuna uusan u crash garoobin waxaa jiduna ka mid ah data consistency-ga kaasi oo ah qodob aad muhiim u ah kawan haddii markaaynu lacagta ka qabanno qofkii macaamiilka ahaa balse backend-geenu crash garoobo intaanu fariintii u geenin hotelkii waxaa dhacaysa in dalabkii uusan u tegin qofkii macaamiilka ahaa waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee laga wajaho systemska ka fikir xalka yeelan karto caqabadaasi oo kale nagula wadaag qaybta commentiga sidoo kale qodob muhiim ah ayaa ku jira casharkeena maanta kaasi oo ah synergy waana markaa isku dhac ka dhex dhaco functional requirementska iyo quality attributska tusaale ahaan security-ga iyo usability-ga haddii aan u baahannahay in application-keenu uu si dhaqso badan u sameeyo check-out-ka ama aynu dalabaadka u samayno functional requirementskaasi waxaa caqabad ku noqon kara security-ga oo kale tusaale ahaan oo kale haddii aan rabno inaan samayno multi-factor authentication waxay qaadanaysaa waqti kaasoo dib u dhigaya xawaarihii waa inaynu isku miisaanaa qaabka aynu u samaynayno taasina inaynu samayno strategic trade offisku waa mid ka mid ah go'aamada waaweyn ay tahay inaan qaadanno markaynu dhisayno software architecture-ka si aynu iskugu miisaanno isticmaalka softwarekaasi iyo quality-ga u yeelan doono sidaan hore usoo sheegnayna marar badan cidda aynu dhisayno softwareku si sax ah uma garan karaan waxyaabaha dhacaya tusaale ahaan waxaa laga dalban karaa in application-kaasi loo turjuman karo ku dhowaad 10 luqadood
waa functional requirement-daasi. waxaa sidoo kale laga dalban karaa inuu yeesho zero latency oo ausan daahin, taasi waa quality. budgetka lagu siinayaana tusaale ahaan waa $500. taasi oo kale waa mid aad u dhib badan. shaqada qofka qabanaya architecture-kuna waa inuu mideeyo business goalska laga rabo systemkaasi iyo xaqiiqooyinka technical ayna dhaafi karayn. casharkeena maanta intaas ayuu ku eegayahay. waxaan rajeynaa isla fahanay labadaasi tiir ee ku dhisan yihiin software-isku. casharkeena xiga waxaan ku soo qaadan doonaa architectural styles kala duwan ee loo qaabayn karo software-iska. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.